waxaan maanta ka hadlaynaa mahadho kale oo biyaha wakaalada biyaha waxaan ku hayaa warqad ka soo baxday wakaalada biyaha oo ay amar ku bixinayaan in la bedelo saacadaha biyaha wakaalada biyaha Hargeysa saacadahaas oo sababta loo bedelayo iyo aanay wax macquul ah ku sheegin waxa kale oo yaab leh wakaalada biyuhu waxay u xil saarnayd oo aynu ku ogeyn inay u xil saarantahay inay magaalada biyo siiso ilaa hadda biyo kama hayno waxay u xubsiibatay oo muuqata in wakaaladii ay madal ganacsi isu bedeshay waxay halka ku yiraahdeen waxay keeneen saacado ay qiimahoodiina gooyeen oo ku sheegeen $50 saacadiiba saacadaas oo iyaga uu laga iibsan karo waana suuqa Somaliland dastuurka damaanad qaadayo suuq waa xor dadkii ganacsatada ba saacadaha ka ganacsan jiray dadkii ganacsatada waa laga farmaroojiyay wakaaladii biyaha ayaa iibinaysa waxay kale ku dareen blade number guriga lagu dhajinayo oo guri kasta lagu dhajinayo blade numberkaas oo $5 ku qiimeeyeen oo yiraahdo anaga bixinayna halka ay ka bixinayaan waxa weeye khasnadii wakaalada biyaha oo waa laba dhac oo isdul saaran mid waxa weeye lacag laga baxayo wakaaladii ay lagu bixinayo blade numberka talabaad ee dhacaahina waxa weeye wakaalada lafteedii oo iibinaysa saacadihii wakaalada lafteedii oo iibinaysa marka arintaas soo fajac weyn abuurtay ganacsatadii dadkii qalabka biyaha iyo iibin jiray oo iyagoo laftigoodu arinta walaac xoogan ka muujiyay ilaa xalayto ilaa intii warqadan soo baxday ba aad noo soo xiriiriyay hadaba maxaa looga jeedaa arrinkan waxa kaliya ee arrinkan hindisaha kaliya laga leeyahay ee ay wakaaladu ka leedahay mushkilad saacadeed ma qabno laakiin hindisaha kaliya hadii saacad la keenayna waxa keeni lahaa maxaa la yiraahdaa ganacsatada qandaraas baa la sameyn lahaa saxa tenderka la marin lahaa si sax baa loo baahin lahaa waa naas nuujin cid gaar ah la doonayo inay saacadaha keento dabadna ku dhex iibiso wakaalada biyaha qiyaas ahaan magaalada Hargeysa numberka biyaha caba hadii inta ugu yar ka soo qaad laga soo qaado 20,000 oo guri 20,000 oo guri hadii ay biyo cabto oo 20,000 ee saacadood laga iibiyo oo $50 ah halkii saacad $50 tahay waa lacag 1 milyan lacagta 1 milyan ee aan sifa sharciya ku iman baarlamaanka ogeyn ee baarlamaanka marin waxay ku dhacaysaa gacmo aan la garanayn iyo cid aan la garanayn waxa weeyaan waxaanu ka digaynaa hadaba halkan uga soo jeedinaynaa guddida arrimaha bulshada ee baarlamaanka inay arrintan soo farageliyaan in bulshadan la dul saarayo lacagta maalin kasta hore waxaynu ogeyn bileedadii baabuurta la bedelay hore waxaynu ogeyn aan baarlamaan marin waxaynu kala ogeyn laysamadii oo la bedelay laysankaaga oo ku cashuuran oo ku samaysan oo la yiri mid la faal sameynaya dabadna waa inaad lacag bixiso oo la bedelay waxaynu ognahay manhajka oo dhowr jeer la bedelay maalin kasta waxay ku salaysan tahay hindisuhu lacag waxay xasuusinaysaa maansadii hadraawiye ahayd waxaan dahab meel ka gelin waxaan magac dollar sidan yaqiin kama sii dayaan dabahuwa may ku jirtay waxaan uga digaynaa in arrinkaas bulshadu ay ka falceliso oo sida ay tahay uga falceliso oo aan la aqbalin saacadaha dulsaarka ah ee la dul saarayo guryaha ay khasab ku iibso muddo ay qabteen kooban muddo 3 bilood waa inaad ku bedelataan bay leeyihiin saacadaha cusubna aad ku iibsataan arinta aad baan uga digaynaa wakaaladana waxaan ugu baaqaynaa inay shaqadii ay u gudmanayd ee qaranka ay u haysay ee ah inay Hargeysa biyo siiso Hargeysa way biyo leedahay iyadoo aan biyo lahayn saacada dul saara iibsada dadka waa ku dhibaato wax la aqbali karana maaha